asalaamu calaykum khiyaarteena dunida miidiya oo aada uga barateen xaqiiqooyin cilmiyeysan taariikhda shakhsiyaadka ugu caansan dunida iyo wax kasta oo aada uga baahan tahay fadlan si aad ugu xidhnaatid sabscribe saar like nagu dhiirageli aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida miidiya. hay-adda mukhaabaraadka ama sirdoonka mareykanka waxay ka mid tahay kuwa ugu layaabka badan ee leh waxyaabaha cajiibka balse dadka qaarkii aysan ogeyn. dunida miidiya ayaa maanta u joogta sidii daboolka uga qaadi lahayd xaqiiqooyinka qarsoon ee sirdoonka mareykanka. markay niyadaadu ku soo dhacaan sirdoon waxaad arkaysaa in 100 ama 200 oo shaqaale ay ka shaqeeyaan kuwaas oo ka howlgala hay-adaha noocaasi ah, balse xaqiiqdu waxay tahay in hay-adaha noocaasi ay ugu yaraan yihiin in ka badan 6,000 oo shaqaale oo lagu daray askarta shaqada ku leh sugidda amniga madaxda. howsha ugu weyn ee sirdoonku waa sugidda amniga madaxweynaha dalka, laakiin maaha howshaasi keliya mid loo wakiishay ee sidoo kale waxaa waajib ku ah inay sugaan amniga madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynayaashii hore iyo qoysaskooda. mukhaabaraadka shaqada kale ay qabtaan waxaa ka mid a sugidda amniga mas-uuliyiinta soo booqda dalka mareykanka. sidoo kale waxay u xilsaaran yihiin sugidda amniga musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxweynenimada mareykanka markay ka harsan tahay ku dhowaad 120 cisho. mid kasta oo sirdoonka ka tirsan waxa uu leeyahay aqoon ku saabsan adeega caafimaadka isla markaana asaasigu ah badbaadinta qofka noloshiisa. waxay xakameyn karaan markay xaalad adag dhacdo, xitaa waxay awoodaan badbaadinta qofka ilaa ay ka imanayso gaariga gurmadka ama laga geynayo goobta caafimaad ee ugu horeysa. shaqaalaha sirdoonka ee qaabilsan sugidda amniga madaxda sarsare waxaa loo tababaraa si sareysa. haddii uu dhiig badan ka baxo madaxweynaha, dhacdo ama iskuday dil uu la kulmay aawadeed, waxay raggan sirdoonka wataan baco dhiig uu ka buuxo kuwaas oo ah nooca dhiigga madaxweynaha, taasi oo hore loo sii diyaariyey si uusan dhibaato ula kulmin inta la doondoonayo dhiig ku nooca. sirdoonka madaxweyne kasta waxay ugu yeeraan magac isaga u gaara oo aan kiisa ahayn balse xaraki ah. weliba magacaasi oo dhan lama isticmaalo bal qaybta dambe oo keliya. tusaale, madaxweyne Obama waxay ugu yeeri jireen Renegade, Bill Clinton Nagusha, halka madaxweynaha haatan ee Donald Trump ay ugu yeeraan Imbaradoorka. sidaan rumaysannahay bandhiga layaab kale ee sirdoonka ee FBI-da markaad daawanaysid aflaamta oo aad ku arkaysid waxyaabo layaab leh oo mararka qaarkii aan caadi ahayn, laakiin xaqiiqdu waxay tahay ma jiro wax la yidhaahdo dhaar, balse waxay nafsadoodu ka horumariyaan badbaadinta nafta qof kale si ay iyagu ugu dhintaan. kama dhigna inay mowqifkoodu ka laabanayaan, laga yaabee inay wax uun ku riixayaan arrinkaasi. taariikhda dalka mareykanka laguma qorin ilaa xaalad kaliya oo camiil sirdoona nafsadiisa u horay madaxweyne dartii. sarkaalkii Leslie Covell ayaa geeriyooday bishii Noofembar 1950 waqtigaasi oo sarkaalku amnigiisa uu sugaya madaxweyne Harry Truman. hay-adda sirdoonka mareykanka waxaa la aasaasay markii la dilay madaxweyne Lincoln. fikirkaasina waxaa soo jeediyay Homer Cole oo ahaa wasiirkii maaliyadda, isagoo arrinkaasi soo hindisay waxaana uu la wadaagay madaxweyne Abraham Lincoln, iyadoo mar dambe oo maalintaasi goob masraxiyad lagu daawanayo uu tagay lagu rasaasiyey, taas oo u geeriyooday rasaas madaxa ka haleeshay aawadeed. inta badan waxaanu aragnaa shaqaalaha sirdoonka oo xiranaya dhar iyo okiyaalo madow, balse marka laga tago aflaamta ma sameeyaan ilaa iyo xaalado cimilada la xiriirta oo naadira iyo asbaabo kale mooyaane. haddii aad daawatid shaqsi sirdoona oo gadaal ka taagan madaxweynaha, waxaad dareemaysaa inuu la mid yahay kuwa kale oo gacmahoodu xabadka u saaran yahay. si kastaba ha u kala duwanaadaane, balse waxay heegan u yihiin inay si degdega hubkooda ula soo baxaan ee uga jawaabaan qalqal amni kasta oo dhaca. muuqaalkan waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Cabduqaadir Qayska. waxaad ka daawanayseen dunida miidiya. fadlan subscribe saar, like nagu dhiirageli. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.